habeen hore shantii habeenimo ayaa guri halkana xaafadda Sheekh Ismaan dabka kacay. dabku markii uu kacay isla markaaba waajibkii ciidanka booliisku ku lahaa kow waa howlgalka dhaqaaqay oo ka qayb galay saldhigga Sheekh Ismaan, laba saldhigga dhexe Boorama, saddex ciidanka heeganka, afar taliyaha howlgelinta qaybta. waxaan isla markaaba dhaqaajinay ciidanka damiska oo hawsha ka qayb galay. marxaladda waa adkaatay iyo meesha hore noqotay. waxaan mar saddexaad dhaqaajinay agafyada dawladda hoose si ay jidadka u furaan. gurmadka intaa leeg baa horta ciidamada dawladda iyo dawladda hoose ay hawsha ka galeen. meesha sanduuqadaa gubatay, gurigaa gubtay maha markii koowaad ee gubtay. mar horena dab baa ka kacay oo saasoo kale ayaan ugu gurmanayoo guriga aanu baktinay. asbaabta dabka keentay gubashadana hawsha baaristeedii way socotaayoo hay'addii hawshaas ku shaqo lahayd ciidanka booliisku baarista way wadaanoo natiijada goordhow way iska soo baxaysaa. sababta inuu dab guriga gudihiisa ahaa, inuu dab leydhka ka dhashay yahay. hawsha baarideediina waa wax gacanta lagu hayo, goordhow iska soo bixi doona. waxaan aad ula yaabay gabadhii guriga lahayd oo Ingiriiska joogto. waxay tidhi gurigayga dawladda Soomaaliland baa gubto, aqoonsi bay ku raadinaysay. waxyaabaha hadallada qaar in la yidhaahdo ay aad iyo aad u foolxun tahay baa jira. inay wax kale uun ku sheegta ahayde dee dawladdii waa annaga ka gurmanay. ciidamada intaa leegay ay ka howlgaleen, ciidamada damiska intaa leegay ka howlgaleen, dawladdii hoose iyo gaadiidkeedii ay ka howlgaleen, ee gurmadkeeda tacabka intaa leegla geliyay. howlgalkan aniga ciidanka ka qayb galay ee dabka isku tuuray laba askari waa iga gubto, labadaba dhakhtarka yaalaan imika. dee abaalgud baa u helaysiin maan lahayn. ciidanka dabka ku daatay gubtay cusbitaalka lagu daweynayo ayaa gurigii gubay. wax la yaab la weyn. wixii intaasi ka dambeeyay ayaa taliya Cabdikhayr Dugsiyaar Raweele waxa uu gaashaanka ku dhuftay hadallo suuqa la isna dhexmaray maalmihii ugu dambeeyayba oo kuwaas oo sheegaya in xukuumaddu xadhigu qorshaysay fanaanada Safiya Tusmo. waxaana uu intaasi ku daray gabadha mar kale waxay tidhi taliyaha ciidamada booliiska amar soo diro, ciidamo soo diro, soo qabtay yidhiyo taliyaha gobolka amarkaa diiday. adeer miyay suuragal tahay taliyaha ciidanka booliiska inaan anigu amarkiisa fulin waayo? wax suuragal hadallada noocay gabadhaas si ay wax ula ekaadeen waan garan waayey. waan u yeedhay ninkii qabay iyo caaqilkeedii iyo odayadeedii. way dhacday iyo ma dhicin. bal mid keenaan ku yidhi gabadha dawladda guriga ka gubtay iyo mid kale iniga laga doonaya. waa been tahay, waa runtaa inaad gabadha mid ku tidhaahdaan. hawsha waan soo dhammaystirayna, odayada laftooda waan sugayaa. marka dee gabadh muddo karahoo garaad badanoo ayaan u aqaanay hawsha ay gashay iyo bal arrintaa waxa ku kalifay. dee waxaan imika aanu garanayn, laakiin kulli waa arrin aad ugu xumahay inay soo harshay gabadhaasi. ma jirto. ta labaad haddii inanta la qabanayo yaroo xorahoo ayay airport Hargeysa ka soo degtay. iyadoo xorana airport haddii inantaa la xidhayo iyadoo airportka Hargeysa ka soo degtay, qof la garan waayana ma waa qof dadku wada garanayaan. isla maalintan uu dabku qarxayay maalintii ku saddexaydna iyadoo hore airportka Hargeysa ka duushay. haddii taliskiyo dawladihii ay raadinayaan adeer may mar lahay airportada ka dhoofi lahay. hadalkaas waa wax aanan suuragalahayn, wax dhacayna maaha. dee inanta malaha sawir kale daawatay hawshaas ma jirta maaha.